سادكسونتين عذر كان الدنيا دون أيو دواتوين كهايا وحليها أمريكان كمنطقة لو بقول يصدق كن وحوينا وصورت يعني عذر كان أو بريست كانسر كعب 40% كم إذا وين إنتين ضد كاس ويقول إنتين عذر كان سنتر الودة وينا كانسر كايو إلا سمايو وحواي وحبان إن ملايين دولار منطقة الجليو تبحثين عبشرات ذكرنا وشيكي إن وذين برنامج منطقة للربيع إن كانسر سنتر الغبصة العادة وشهاجة إن يجلسوا بجت الدولة وحواي فبجبار كذا ساسة هاي إن معلومة بوحنا رجنا داتا تستعرضها سوشيال ميديا ضد الإلدران عذر كاس ورنتي دباتوين وكوايا waxyaalaha ugu muhiimsan ay tahay aqoon darida hadii la helo wacyigelin noocan oo kala ah waxa aaminsanahay inay wax badan ka tari doonto mantaqaana cudurka in xilli hore loo gaaro yani early detection ka breast cancer waxay saacidaysaa cudurka treatment-kiisa mantaqaana in si hore loo daaweeyo qofkana waqti dheer la noolaado waxa arkayay meel oo mantaqaana herbaliska ah oo lagu daaweeyo wax walba lagu daaweeyaa meeshaas qol yiriis waaye nina dhax fadhiyo magaalada Muqdisho ku taala mikrofon xataa u dhagan wax qarsoodi ama ahan waxaas ani mikrofonka ka maqlo jidka maraa ka maqlo waxa lagu daaweeyaa kansarka sokorta dhiigkarka cagaarshowga baasiirka wax walba meesha lagu daaweeyaa waa qol yiriis oo miis yiriis yaalo waaye waliba meel oo istaraatiijiga oo isgoys ku yaala mikrofon dheer oo xiran marka umadeena ina mataqaana waxyaalahaas aan ku deeyno sax ma ah waxa la rabaa wacyigelin bulshada la sameeyo dadka laga wacyigeliyo bishaan waxa la rabaa mataqaana dhaqaatiirana inta badan boostiyadana waxa umaleena siyaasadda iyo ku saabsan yihiin baraha bulshada waxa la rabaa inaan u bedelno wacyigelin aan u bedelno maadaama anaga aan bahda caafimaadka oo aan ka hadalno mataqaana munaasabad walba waxa ay qosayso waxaa kaloo muhiim ah runtii ma aqaano in laga hadlay hortay daawooyinkan mataqaana la isku cadeeyo oo runtii ayagana dhibaato weyn ku haayo bulshadeena waa ogtihiin waxa leenahay midabka Soomaaliga ah waa midabka ugu qurxoon mataqaana midabada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu manaystay marka waa hibo gaar ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala si oo dadka inooga duubay oo maanta nagu la aqoonsanayo hadii marka kaas aan bedelno hadda cadaan ma aan gaarin carabna ma aan gaarin meel dhaxan ku dhumeena qatar caafimaadna uu ku keenaysa marka waxa la yiraahdaa creamskan markii laga isticmaalo amount ba marka laga isticmaalo skinkaada absorption ku sameeyna marka waxay noqonaysaa carcinogenic noqonay waxyaalaha risk factors ka mid tahay breast cancer keena alxamdulillah maalmaha waxa arkay mataqaana social media kulli dhamaantiin oo la socotiin gabdho ku faanayo midabkooda waxa loo baahan yahay arintaas in la dhiirigeliyo waxa la rabaa midabkeena aan leenahay inaan ku faano oo mataqaana waliba gabadha aysan ka cabsan kalarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo si ay tiraahdo sana wala waan ku qurux badan inay tiraahdo wiilasha markay ku qasban yihiin mataqaana inay raacaan